maxaan u jeclaanaa qof aanan ina jeclayn? waa su'aal aan muuqaalkani kaga jawaabi doono. bini'aadamka qaab abuurkiisa ayaa ah in wax laga reebo uu daba ordo ama xiiseeyo qof aan xiise u haynin. u fiirso adiga muuqaalkani daawanayo haddaan ku weydiiyo su'aal ayaad jeceshahay, ma qofka ku jecel baa mise qofka aad jeceshahay? xaqiiqdii waxaad igu jawaabaysaa qofka aan jeclahay. waxaa laga yaabaa qofkaasi aad jeceshahay in isagana uu jecel yahay qof kale. waxaad ka carartaa qofka ku jecel ee ku danaynayo, waxaadna daba carartaa qof aanan ku jeclayn danna kaa lahayn. dadka oo idil waa sidaa marka laga reebo dad dhowra oo fahmay xaqiiqada jacaylka kadibna dareen wadajira isu qaaday. tanna way adag tahay in la helo jacayl labada dhinac ah. haddaad u fiirso dadka badankii waxay la dhibaataysan yihiin jacayl hal dhinac. iyagaa wax jeclaaday kadib waxaa lagu aqbalay dano gaar ah si loogu fusho. waa sababtaan u aragno dad badan oo qalbiyooda la dhaawacay, dad badan oo gabdho iyo wiil isugu jira oo dadkii ay jeclaayeen ay ka tageen ama laga gaaray danihii laga lahaa. markaasaan eedeynaa jacaylka oo dhahnaa sanadkani jacayl ma jiro. jacayl wuu jiraa sanadkan wuuna jiri doonaa inta la nool yahay, laakiin adigaa jeclaaday qof khaldan oo si dhab ah kuu jeclayn. waxaa jirta su'aal kale oo maxaa si xad dhaaf aad ugu jeclaataa qof aad ogtahay inuusan ku jeclayn? jawaabtu way fududahay, laakiin ma ogtahay in xitaa adiga aad gaarsiisay qofkaasi aad jeceshahay inuusan ku jeclaanin? waayo waad ka badbadisay, waxaad dareensiisay inaadan marnaba ka tegaynin, waxaad noloshaada u dhiibtay qofkaas. bini'aadamkana ma jecla kabadbadiska iyo isu dhiibitaanka. waxa ay ka doorbidaan qof ay ku wareeraan, ku rafaadaan sidii ay ku heli lahaayeen, marar badan ku fikiro sida uu qofka ku soo xirigelin lahaa, waqti badanna uu kaga baxo. laakiin haddaad samayso inaad isa siiso qofkaasi isagoo waqti ku bixin helidaada, sida fudud uu kugu hel ayuu kaaga tegayaa. laakiin haddii si adag uu kugu heli lahaa way adkaan lahayd sida uu kaaga tago. ugu dambayntii, si kastoo aad qof u jeceshahay dhulka ha isdhigin, hana ka badbadinin, ee taa beddelkeeda waxaad samaysaa inaad dhulka iska qaadid, u muuqatid qof aanan la heli karin. naftaada uga sheekay qofkaasi si dhaaragti aan ahayn. waxaad iska dhigtaa qof helidiisu ay adag tahay, kadib ayuu u soo jeesan doonaa sida uu u kasban lahaa qalbigaaga. haddii sida ay dhacdana ha u fududaynin, horena ha iska daadin. is-adka ilaa uu isaga ama iyada waqti badan ku bixiso sida ay kuu heli lahayd. ku raaxayso in lagu daba ordo.